bismillahi raxmaan raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta naafici show waa 3 bisha toddobaad 2026 maalinimo khamiisa sacuudiga oo dadaal xoogan wada kaas oo ku doonayo in uu carqaladaynta ay ku wadaan xuutiyiinta Yemen Baabul Mandab in uu saameyntooda yareeyo waa sida ay wararka sheegayaan dhinaca kale ciidanka militariga ee dowladda Suudaan miyuu Turkiga u maleegay dhagar mise Imaaraadka Carabta ayaa iyaga dhanba wada maleegay dhagar waa sida falanqeeyaasha caalamka ay sheegayaan dhibaato xoogan ayaa halkaasi laga soo sheegayaa taas oo ay ku sheegeen falanqeeyaasha caalamku waxa aan la qaadan karin inay ka soo baxeen dalka Suudaan dhinaca kale Ruushka ayaa waxaa la sheegay xalay inuu duqeymo xoogan ka geystay dalka Ukraine haba ugu sii daraatay caasimadda Ukraine ee Kiev qodobo kale ayaa raaci doona haddii aynu u helno waqti insha Allah ma doonaysaa inaad xifdido quraanka sidoo kale ma jeceshahay inaad barato shareecada haddaba markiisa kifaax online waxay idii soo kordhisay fasallo online ah oo lagu xifdiyo quraanka kariimka ah sidoo kale lagu dhiganayo duruusta ay ka mid yihiin tafsiirka fiqiga siirada adkaarta ducooyinka iyo carabida haddaba arday iska diiwaan geli lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ku bilownay war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran inay burburiyeen 3 diyaaradood oo kuwa F-35 ah ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta shaaca ka qaaday in gantaalo balaastig ay ku beegsadeen saldhigga ciidanka ee Al-Qaras ee ku yaala saxaraha bariga ee dalka Jordan weerarkaasi waxa uu burburiyay ayaa leeyahay 3 diyaaradood oo dagaalka ah oo nuuca F-35 ah halka 3 kalena ay soo gaartay waxyeello culus sida ay baahisay wakaalada wararka ee Turkiga ee Anadolu war-saxaafadeedkan waxaa laga soo xigtay ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran oo ay soo xiganaysay Anadolu oo lagu sheegay in ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka ay beegsadeen goob ay ku xareysnaayeen hangarada diyaaradaha dagaalka ee cirka F-35 ee Mareykanka uu leeyahay iyaga oo adeegsanaya dhowr gantaal oo balaastig ah war-saxaafadeedka waxaa intaas uu ku daray in weerarka uu jawaab u ahaa duqeyntii xalay uga geystay Mareykanka wixii warar ka soo bax halkan ayaan ku baahin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo laagsaar barnaamijka oo share garay meel fogna gaarsiiyay Sacuudigana dhankiisa war ayaa ka soo baxay dowladda Sacuudi Carabiya oo hogaaminaysa dadaalo caalami ah oo lagu ilaalinayo maraakiibta ganacsiga ee badda cas Riyadh oo ah boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si xoogan u dardargelinaysa dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo isbahaysi caalami ah oo lagu talagalay ilaalinta maraakiibta ganacsiga ee isticmaasha marinbiyoodka istiraatiijiga ee badda cas waa sida ay warisay wakaalada wararka ee Reuters Sacuudiga ayaa la sheegay in uu codsi rasmi ah u diray tobanaan dal oo caalami ah sida ugu qayb qaadan karaan isbahaysigan cusub ee diiradana saaraya xoojinta amniga badda iyo sugidda badda cas maraakiibta adeegsanaysa dadaaladan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan walaaca la xiriira weerarada ay xuutiyiinta Yemen ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta ganacsiga ee adeegsanaysa badda cas kuwaas oo khatar ku ah ganacsiga caalamiga iyo socodka sahayda muhiimka ah sida shidaalka iyo badeecada ee asaasiga ah wararka ayaa tilmaamaya in isbahaysigan la qorsheynayo uu ku koobnaan doono wadamo leh awood ciidan oo badeed kuwaas oo si wadajir ah ugu qayb qaadan doono ilaalinta marinkan ganacsiga ka hortagga weerarada iyo hubaynta maraakiibta badda cas adeegsanaysa si nabadgelyo mas'uuliyiin ku dhow dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu xasilinayo gobolka isla markaana lagu ilaalinayo danaha dhaqaale ee caalamka maadaama badda cas ay ka mid tahay marinada ugu muhiimsan badda ee dunida inkasta oo aan weli si rasmi ah loo shaacinin dalalka ku biiriya isbahaysigan haddana waxaa la filayaa in wadamo badan oo doonaya amnigan badaha in ay ku soo biiri doonaan oo ay aqbali doonaan codsiga uu u jeediyay Sacuudi Carabiya wixii ka soo kordha wararkeedan kale ayaan ku faahfaahin doonaa laagsaar barnaamijkan oo share galay meel fogna gaarsiiyay dagaalka Suudaan ka socdana waxaa dul hooganaya su'aalooyin aad iyo aad u tiro badan miyaa la isku dhagrayaa Suudaan dhexdeeda mise waxaa socoto koox gooni ah in la dhagrayo ciidanka militariga ee Suudaan ayaa toddobaadkan la wareegay bakhaaro ay leedahay kooxda RSF ee ku yaala Kordofan halkaas oo ay ka heleen qalab casri ah oo dagaalka elektaroonigana loo isticmaalo gaar ahaan nidaamyada loo yaqaano ILTERJ 350
ee Turkiga uu sameeyo. Qalabkan ayaa awood u leh in uu carqaladeeyo isgaarsiinta iyo inuu hal mar ka hortago ilaa 30 diyaaradood oo drones ah oo masaafo ahaan isu jira 5 kiiloomitir. Arrinta la yaab kale ayaa ah in qalabkan oo caadiyan loo isticmaalo militariga Suudaanna ay ka heshay Turkiga in ay u muuqatay Suudaan ama ciidanka Suudaan uu u muuqday mid ka sarreeya ama ka gacan sarreeya RSF. Sida xogta shirkadda soo saartay ay muujinayso, nidaamkan waxaa si rasmi ah u iibsaday dalal ay ka mid yihiin Azerbaijan, Pakistan, Liibiya, Indonesia, Ciraaq, Suudaan, balse lama sheegin in Imaaraadka Carabta uu ka mid yahay dalalka iibsaday. Waxaa jira su'aalo badan oo ka taagan sida qalabkan uu ku gaaray RSF, maadaama heshiisyada militariga ay mamnuucayaan in loo gudbiyo dhinac saddexaad. Tani waxa ay noqotay mid ka mid ah dhacdooyinka la yaabka leh ee ka imaanaya Suudaan, taas oo muujinaysa in la is dhagrayo.